daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka wacyigelinta bulshada ee warbaahinta Somali Break. Toddobaadkan waxaan waraysi la yeelanay Maxamed Aadan Cali oo ah khabiir ku xeel dheer caafimaadka guud isla markaana leh khibrad 20 sano oo ku saabsan cilmiga biology-ga, cilmiga microbiology, immunology iyo barnaamijyada caafimaadka bulshada. Waxaana u shaqeeyaa bahda caafimaadka ee Seattle iyo King County, Washington. Maxamed, ku soo dhawow Somali Break. mahadsanid cabdiraxmaan runtii aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan ku kulano stuudiyahaaga maxaad nooga sheegi kartaa xaaladda guud ee u dambeysay COVID-19 gaar ahaan tan degmada King County? xaaladda COVID-ka dan wax kaaga sheego runtii isbedel baa muuqanaya hadday noqoto county-geena, hadday noqoto state-ko dhan iyo caalamkoo dhanba. intaasoo dhanna waxaa dhacaya in uu spike waxa loo yaqaano ama surge inuu cudurkii uu wave kala bilaabanayo oo aan la garanayn waxay ku dambeyn doonto bilaha soo socda. waxaasoo dhanna waxaa loo sabaynayaa inuu ka dambeeyo ilmihii ama dhashii uu dhalay Omicron, qeybo cusub oo maalinta ka dambe soo baxaya. hadda waxaa caalamka laga yaaban yahay mid loo yaqaano maxaa la dhihi jiray Omicron B5. haddaan u soo noqdo state-keena iyo Mareykanka oo dhanna waxaa dhacay koror ku yimid dadkii u xanuunsanayay cudurka, qaarkoodna cusbitaaladii bay u yimaadeen oo 18% increase baa dhacay, 18% oo koror ah baa ku yimid dadkii cusbitaalka loo dhigay. marka xaaladda cudurkan runtii hadda waa heer oo indhahayagii soo jiidanaya oo la doonaya dadku inay ka waantoobaan lana hadlo si aysan uga sii darnaanin halkaan maanta marayno. CDC-da iyo Public Health labaduba waxay ku taliyeen in maaskara la xirto marka aad galayso goobaha dadan ee bulshadu isugu timaado sida makhaayadaha iyo goobaha kaleeto. arrintaasi waxay ka dhigan tahay in dib loogu noqdo ka hortagga ee qofka ku sugan. maxaa yeelay waxyaalo badan baa looga hortagi karaa cudurkan. waxaa ugu horeeya marka hore qofka oo ah defensive ugu horeeya inuu asaga iska celiyo inaad xanuunsan inuusan kuba dhicin. taasoo sababteedu ay tahay haddii aad maaskiga aad xiratid, maaskiga xitaa iska xirasho maahe waa in properly loo xirto sida ugu hagaagsan ee ku fidgaraynaysa. ilaa iyo maaskiga iyo kala nooca surgical mask ayaa midka caanka ah dadka qaarkood cloth bay xirtaan macnaha oo mara ka samaysan, taasi waa laga soo tegay. laakiin ilaa hadda heer ay maraysa in xitaa N95 in lagu taliyo. marka taladu ilaa hadda waxay ku siman tahay haddiiba qofka uu gudaha sida hadda qolka aanu ku jirno kale ay dadku isugu yimaadaan in uu qofka sankiisa daboosho, taasoo ka reebaysa qofka kale wixii ka imaanayay iyo adiga wixii ka tagay qofka kale aaday. marka taladaasi waa recommended. waxaana jeclahay inay intaasi aysan noo dhaafin maxaa yeelay ilaa hadda caseska ayaa waxay yihiin ilaa 800 case meesha aan joogno county-geena maalintii. taa waxay ka dhigan tahay weli dad tiro badan oo xanuunsaday oo aan maxaan ku raacay soo report gareyn, dad badan oo xanuunsaday guriga intay isku baareen is ogaaday dabadeedna aanan hore u soconin, iyo waxaa la yareeyay xitaa goobihii la isku baari jirna waa yaraadeen oo waa la xiray maadaama lahaa cudurkii waa laga gudbay. laakiin waxaa hadda imaanaya ee calaamadaha muuqanaya runtii waa it's alarming oo waa arrin foojignaan badan u baahan in la sameeyo. marka sidaas CDC-da iyo Public Health-ga ay leeyihiin fadlan adiga istifaaci kara, adiga ah meesha maxaan ugu horeeyay naftaada. hadday dhacdo inaad qof isugu timaadaan maqaayad ama meel ciriiri ah sida masaajid oo kale iyo meel kastoo maxaan ku rahdaa keeni karaysa in dadku hawadu ay circulation hawada uu yar yahay oo ay dhici karaysa hal qof oo cudurkiisa sida inuu afuufayo wixii. marka adigu maaskigaaga xiro waa talada hadda socota. haddii arrintu inta ay ka sii korodhaan waxaa dhici karaysa in mask mandate uu dib u soo noqdo. taasi way dhici karaysaa haddii xaaladdu ay sababto. waxaa lagu jiraa hadda waqtigii kulaylaha ama samarka. waa waqti dadku inta badan banaanada soo baxaan. waxaa aad dadku u tagaan goobaha aroosyada. waa waqtiga aroosyadu ay badan yihiin. goobaha lagu caweeyo dadku aad uga soo baxaan. goobaha ciyaaraha ama sportska dadku aad isugu soo baxaan.
waxaa laga yaabaa in halkaasi dadku ay cudurkii ka qaadaan. qofka haddii markaa uu isku arka calaamado maxaad kula talin lahayd? waa horta laba u kala qaadaya. midna way dhacdaa, waa waqtiga aroosyada, waa waqtigii isu soo baxa, waa waqtiga cayaaraha. hadday noqoto outdoor oo banaanka in lasugu soo baxo, iyo hadday noqoto indoor oo meelaha dadku ay isugu yimaadaan. marka aroos markaan tusaalahaan usoo qaadano, taasoo annaga agtayada aad maxaan ku rahdaa common uga ah. haddee waxaa imaanaya qaylo iyo buraanbur iyo sacab iyo farxad iyo laas baa imaanaya. taas wey meesha annaga aan rabo dadkayga inay ogaadaan. cudurkan haddii hal qof uu nagu jiro oo cudurkii sida ee 99 qof kale ay badqabaan, halkaa qof ee inoo sabcinaya ama hindhisaya ama buraanburaya ama qoslaya farxaya, waxa ka soo daadanaya maxaan ku rahdaa fayraskaas uu sirdhinayo, uu daadinayo, ayaa waxay sababi karaysaa ilaa iyo qayb ka mid ah, haaf ka mid ah dadkii inuu qaadsiiyo. marka dadka waxaa looga baahanayaa marka ay arrintu sidaa tahay, qof yahow waxaad samaysaa maaskagaaga xiro. weli maaskiga caadiga xitaa ku talin maayo hadday noqoto indoor. waxaan dhihi lahaa N95 in la xirto si qofka uu helo wax sugan oo uu keeni kara isaguna inaysan wixii ka daadan ama qofka kale qabana aanu maxaan ku rahdaa usan ka qaadin. taasi waa midda maaskiga ku saabsan. haddii social distancing-kana weli cidina nama amrayso, laakiin si adiga caqligaaga eeg. marka qaarkood waad arkaysaa qaraabo qufacaya, hindhisaya. fadlan adiga mas-uulka naftaada inaad ka fogaatid. haddii qofkaasi maxaan ku rahdaa loo cudurdaari karo inuu gurigiisa isaga noqdo, maadaama qofka dhici karayso inuu u yimid si ballanqaad ama maxaa la dhihi jiray invitation u haystay iyo qaraabo ka filaysay inuu maalin habeenka aanu ka maqnaan. marka waxyaalaha dhaqanka agtayada qof xanuunsan dhici karayso inuu meesha yimaado. marka dadka noocaas oo kale in loo cudurdaar way fiican tahay. taasi waa midda kale aad ka hadashay waxay tahay dadku waa xanuunsan karayaan oo waxaa dhici karaysa qofku inuu xanuunsado. waxaa hadda runtii guri kasta aan isleeyahay inuu yaallo ilaa iyo 10 ilaa iyo 20 meeyo kits oo ah home test kits oo available ah, oo qofku uu ka heli karo meelo badan. wuxuu ka heli karaa qofka haddii uu doono inuu maxaan ku rahdaa posta US posta ka dalbado. haddii uu doono wuxuu ka heli karaa in Somali Health Board oo haysa oo ciidaas tiro badan haysa inuu qofka tago xafiiska oo ka soo qaato, ama xitaa haddii uu heli karo qof u soo qaada oo maxaan ku rahdaa adigoo hadda testingka aad buu available u yahay. taasoo ah qofka inuu home testigaasi guriga isku sameeyo, kadibna haddii uu positive noqdo uu tallaabadii ku xigta uu qaado oo ah qofka inuusan ummadda dhibkiisa qaadsiin ka reebo. taasi waa arrinta aan kula talin lahaa. waxaad u shaqaysaa public health in muddo aanaad u shaqaynaysay tan iyo intii covid-ku u dhacay. dad badanoo waxaa jira laga yaaba inay iska indha tiraan amaba iloobayba oo isle covid-kii wuu tegey. maxaad nala wadaagi kartaa waxyaabihii aad oran karto kugu adkayd ama aad maqashaba qof ka soo gaara covid-19? runtii waa su-aal muhiim ah oo aan islahay mararka qaarkood keligeeda waxay qaadan karaysaa saacado inaan ka sheekeeyo. maxaa yeelay bildinka hadda nagu dhegan oo ah stuudiyaha ku dhegan runtii waa meesha aan ka shaqeeyo oo public health-ga xafiiskiisii ah. waxaan xasuustaa February markii ugu horreysay oo kaysaska January 20 markuu statekeena ama areadeena uu ka bilowday, kadibna February 4-5 aan u maleynayaa kayskii ugu horreeyay ee geerida ah. dabadeedna heerka aanu maalintaa maraynay waxaan xasuusanayaa digniino iyo talooyin aan ummadda markaa la wadaagay oo aan uga baqayay inay waxa kan sida ay ku socoto inuu mustaqbalka intaan ka ballaarto. haddaan nafteyda fiiriyo maalintaas isma oran lahayn, isma marna kuma fikirin inuu maanta heerkan gaarayo cudurkii. anigoo xitaa iyo cid kasta oo ku shaqo lahayd buu ka yaabiyay cudurkan. wuxuu isbeddel ku sameeyey noloshii deegaanka aan deganahay. maalintaasaan ugu dambeysay xafiis aanu ka shaqeyno, nolosheeda dhan way isbeddeshay runtii daan kuu sheego. intaasoo malyan qof wuu laayay cudurkii, intaasoo malaayiin qofna way maxaan ku cusbaalle u gashay, intaasina maxaan ku rahdaa waa cudurkii uu ku dhacay. inta aan la ogeynna way ka badan tahay. waxaan kaloo runtii rabaa dadkaygu inaan dareensiiyo dad anigu aan ka mid ahay cudurku uu ku dhacay baa jira oo calaamadihiisii xitaa ilaa hadda isleh kaamaba harinba, oo waxaa loo yaqaano long covid. waa calaamado aan dhammaanayn oo aad is leedahay welito waxbaa kugu dambeeya.
noloshaadii aad ogeyd ee ahaan jirtay intuusan kugu dhicin runtii ilaah baa og inay dib u soo noqon doonto marka waxyaalo badan waxaa jira aafo uu dadka cudurku dadku reebo marka qofka mar aan dadka la hadlaya waxaan idhi qofka ilaa hadda uusan cudurkan kuba dhicin runtii waad nasiib badan tahay qof aad u nasiib badan baa tahay ma aqaan caalamka meelaad ka joogtid caalamku dadku wuxuu isugu jiraa dad cudurkii inta uu ku dhacay malaayiin iyo dad wada talaalkii qaatay iyo dad intuu ku dhacay dabadeedna talaalkii qaatay boosterka qaatay ayuu haddana ku dhacaya omicronka hadda socda waxyaalaha la yaabka hadda socda oo aan runtii aan qaybtii hore uga hadlin maxaa looga baqayaa B5ka hadda sababta looga baqayaa waxay tahay tusaale ahaan ilaahay uguma keenay aniga cudurkii waa igu dhacay oo 2 week baan u xanuunsanaa talaalkii waa qaatay 2 doos booster baan qaatay oo intaas hadda ku ekaay dadka qaarkood booster 2 baa loo ogol yahay ilaa hadda qof kasta waxaan ku talanayaa ogow area meesha aad joogtid iyo waxa lagu ogol yahay kana faa'iideyso fursad taasi waa talo marka sheekada aan rabo inaan dhameystiro waxay tahay dad uu ku dhacay oo talaalkiina qaatay booster qaatay ayuu hadda ku dhacaya example waxaan kugu soo qaadanayaa madaxweynaha Mareykanka hadoo kale inkastoo aan u malaynay inuu ku dhicin laakiin booster buu qaatay dadka qaarkood intuu cudurku ku dhacay oo talaalkan uu dhameystiray boosterna uu ku dhacay buu hadda ku dhacaya waxaasoo dhanna waxay tahay nooca hadda socda wuxuu awood u leeyahay in uu immune evasion waxa loo yaqaan uu sameeyo difaaca gantaalada jirkaaga uu sameystay inuu qaldo oo gas uu siiyo oo uu si cudur kugu keeno ilaa hadda wuxuu awood u leeyahay kaliya inuu ka qarqariyo ka qandaysiyo haddii uu bato qufac iyo maxaan ku raahdaa uu kugu keeno maxaan ku raahdaa waxyaalo calaamado yaryarka ilaa hadda waxaa la ogyahay inaysan ciidana aysan cusbitaal badan u gelin geerina ma jirto oo dadkii waxa aan ka hadlayaa fully protected ka ahaa laakiin dadka ilaa hadda magaaladeena 3 qof baa shalay u dhimatay waa 3 qof oo geeri ah marka dadka ilaa hadda u dhimanaya waxaa lagu saaday inaysan weli talaalkii qaadan inay cudurkii weli aysan maxaan ku raahdaa u nugul yihiin marka dad yar waxaa jira oo cudurka weli u nugul oo aan talaalka qaadan marka fadlan cudurku waa jira waa wax jooga dhibkiisuna leeyahay marka haddaanu weli kugu dhicin fadlan kolley su'aal baad imaan doonta talaalka dhiirigelintiisa waa number 1 waxaad ka hadashay dadka difaaca jirkooda uu hooseeyo ama immunocompromised loo yaqaano oo weli laga yaabo dadkaas inay qaarkood aysan qaadanba talaaladii loogu talagalay qaar waxaa jira qaatay laakiin guud ahaan bal dadkaas aan weli qaadan talaalka laakiin difaaca jirkooda hooseeyo maxaa kula talin lahayd dadkaas waxaan kula talin lahaa qof yahow waad istaqaanaa haddii dhakhtarkaaga uu ku yiri immunocompromised baa tahay oo macnaheedu yahay iska caabinta jirkaaga way liidataa qof kastoo bini'aadan iska caabin buu leeyahay xaalado badan baa keena in qofka uu caafimaadkiisa ama iska caabintiisu ay hooseyso ay cudurro ka mid yihiin oo ay dawooyin qofka uu qaadanayo ka mid yihiin marka dadka noocaas oo kale waxaa loo baahan yahay in ay qaataan talada dhaqaatiirtooda taasoo ah iyagu ilaa hadda doos 2 bay qaadan karayaan oo booster ah haddii fully vaccinated ay ahaa 2 doos ay qaateen 2 waxaa ka soo wareegtay oo kale booster ah ilaa hadda qofka 4 isagoo qaatay baa loo sii baqsan yahay welito maxaa yeelay viruska maanta ama covid-ka noocyada socdaa wuxuu yahay lala yaaban yahay macnaha transmissibility sida u faafayo sida ugu goonayo immunka marka adiga oo xaalad caafimaad ee ku dheer tahayna runtii waad u nugushahay waxaan kaa codsanayaa kugula talinayaa talada caafimaadkuna ay tahay in aad talaalkaaga dhammaystiratid aad raacday dhaqaatiirtaada waxay kugula taliyaan oo ah in aad fully protected aad noqotid biidn illah maxaad u soo jeedin lahayd ganacsatada iyo dadka la goobaha la isugu yimaado si loo yareeyo faafitaanka covid runtii ganacsatada hadday yihiin maqaayadaha iyo meelaha dadkayga isugu yimaadaan oo aan u malaynaya fadhi ku dirir iyo meelaha dadku intay isugu yimaadaan ay ku sheekaystaan oo maxaan ku raad ku hadlaan meelahaasi gaar ahaan waa meelo runtii dhici karaysa inay noqdaan super spreader waxa loo yaqaano meel cudurka uu ku faafi karo oo si xawli ugu faafi karo hadday meeshu tahay meel dadku intay yimaadaan oo ay waxoodii si degan ah iyagoo maaskigooda xirtay ama xitaa maaski aan xirnayn laakiin qofka jak
within 15 minutes 30 minutes wixiis uu ku dhamaysto riskigu waa yar yahay laakiin meelaha sida gaarka aan ula hadlayno waa meelaha qofka inta uu yimaado saacad iyo ka badan dhici karaysa inuu fadhiyo ku shaaho ku sheekeeyo ku kaftamo ku qayliyo oo aroosada iyo sababta aan uga hadlayna saas ahayd meelahaasoo dhan waxaan ka codsan lahaa dadka leh in ay u hoggaansamaan nidaamka marka ay hoos joogaan ee caafimaadka hadda mask mandate si asan u soo noqon waa inaadan qayb aadan ka noqon in uu faafo cudurkii haddii numberka uu kordho haddee waxa weeye waqti naguma qaadanayso waa Jeff Duggan oo jimcaha dambe istaaga dhaha sheekada waxba iska bedelay hadda wixii ka dambeeya waxaanu ku soo rogaynaa businessyadu in qofka mask mandate macnaha oo lagu qofna indoor business ma soo geli karo ama maxaan kula ma fariisan karo ilaa uu sidaas marka waxaas oo dhan si aysan ugu imaan businessyada waxaan kula talin lahaa inay qaybtooda ka qaataan dadkaygana waxaan kula talin lahaa hadda waxa laga hadlayo waa caafimaadkaaga adiga iyo walaalahaaga aad sheekaysanaysanoo fanka wada haysta wada faraxsan idinka caafimaadkeena laga hadlayaa idinkuna ha isqaadsiina cudurkii bulshadiinna magac xumaa u keenna dhibaataha u keenna waalidkiinna maxaan kula guryaha joogana dhib ha u keenna markaasi qof waliba ku dadaalo siduu isaga ilaalin lahaa cudurkan ugu dambeyn maxaad kula dardaarmi lahayd bulshada Soomaaliyeed oo ku daawanaysa Cabdiraxmaan dardaaranka aan ku darayaa wuxuu yahay cudurkan COVID-19 ka ah waa ogahay dadka iyagu inay ka daaleen Soomaali kaliya ma ahan Muslim kaliya ma ahan caalamka dhan baa ka wada daalay dadka Mareykanka waa ka daaleen way jeclaan lahaayeen in post covid aanu aragno oo ka guurno arintan maxaa yeelay markii aanu iska dhignay maaskigii iyo aan iska dhignay waxyaalo badan relax sheekada dhan ay noqotay waxaa arkaysa dadka qaar xitaa inayba ay ilaaween 2 sano oo imtixaan in la soo maray ayaad moodaa xitaa naftayda ku jirta macnaha mararka qaarkood waxaa isleedahay sheekadii lockdown-kii wixii waaba ilowdaba marka bini'aadanku ilowsho dhawid baa jirta marka fatiga way jira laakiin waxaan ka codsanayaa dadku cudurkan qof kastaba inuu dhagtiisa furo indhihiisa furo haddii adiga aad mashquulsan tahayna dadka maxaan ku rahaa media sida Cabdiraxmaan oo kale iyo dadka markaasi arrimahan maxaan ku rahaa dadka la hadla iyo meelaha ay ku soo gudbaan in dadku ay ka warhayaan oo ay la socdaan maxaa yeelay xaaladdu saas u soo bedbedelaysaa maalin kasta waxba cusub baa soo baxaya hadda waxaanu ka hadlaynaa covid waxyaalaha kale hadda aan monitor gareynay waxaa ka mid ah monkeypox-kaasi jira laakiin ma gaarsiisna ilaa iyo heerkan laakiinse waa heer pandemic ah runtii oo caalamka dhan baa ilaa iyo 10,000 ayuu marayaa hadda Mareykanka oo aanu kaba jirin ayaa hadda maxaan ku radaa 1,000 ku dhawaad maraysa ma boqolaal maraya marka cases-ku sidaas ay maalin kasta wax u soo dhacaan virus cusub baa hadda ka dhashay maxaan ku radaa Ghana oo isagana maxaan ku la monitor gareynaya maalin kasta caalamku wax baa soo baxaya marka qofka bini'aadamka waa inuu dhagihiisa indhihiisa ay furnaadaan oo ku xiran yahay maxaan ku radaa media sida tan oo kale si ay dadku wax ula socdaan taas waa ku talin lahaa